السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا برشا يقول حنا دمانتين با بارني سلام يا وحنا الله سلام الله عليكم. إلهي نبت باديو أيان لي هاي إلهي المسلمين تهي سخروا بقدر برا هاي سومرية دلالة أنا هنا قبوتشيو أنت مرها نقول بحن كرائنا الشيء دي سوق بيو الشيء كذا وحنا ليه وجه الرعب يربان ربنا نصميو الصومالي ذا يجعل كذا هي مسؤولية درج أولية الصوماليين. ragga Soomaaliyeed waxaad moodaa boqolkiiba 80 inuu lumiyay mas'uuliyadii isagoo lahaa oo I don't know fulinimo badan ku soo biirtay sidii especially dumarka markuu ninku naag qabo inaanu ku dhicin inuu naag kale guursado ama inuu qariyo ama inuu meel kale ku guursado inuu wax aan ka soo aanay raggii hore lahaan jirinin waayo qofku isaga mas'uul ah ninku isaga mas'uul ah gabadhiisana isaga ka mas'uula taa kalena isaga ka mas'uula haddii uu labada gabdhood aanu wada qabi karayna وإنه جور كويس كده يتيسا هرس كهستا لكن حيدا تشعلي بيرك تشعلي رجو والجو عشا رجونا مسؤولية ده إسقى عسكري ناق جورسن كره هرتي ده هو جورسن كره إسقى تنحال سينايا مسيرتي كينار سينايا مسؤول لك عدي وموشري مسؤولية دي النمو يعني شيء يعني ذيك الشيء كينا يا لايك تا شير تا كومنت تيجو وحقينا يعني سكراب بسكراب كان يسار إن شاء الله بدون كريم أنت أي سوق قاعد يعني صارينه sheekada waxay tahay gabadhaasi waxay tahay Hargeysa ayaan ku koray ku barbaaray anigoo iran abaytiyo 20 jir ho leeganaya ayaa waxay halabaytay ninka yimi bari boosaaso area ama garowga degan dadka halka degana waxay tii ninkii reerkayagii waan kala helay waa nin waxay tii xaas leh caruur leh waxay tii ninkii wuxuu yiri ilo gabadhay waan ka helay waa gabadh wax la yiri marka gabadhii aragtay ee gabadhan ka sheekeysay tii gabadh ilaahay qurux u dhameeyay way gabadhii waxay tiri gabadhii waxay ku tiri okay ninkii way guursatay uu kaxeeyay reerkeedu way weydiistay uu dhistay Hargeysa ku dhistay ninkii gabadhii waa ka haystay magaalo ayuu dejiyay u dhaxaysa Boosaaso iyo Garowe reerkiisa kalena Garowe yaala wuxuu yiri gabadheedaasi waa gabadh kulul ma rabo inay ogaato haddii ogaato baayan ugu dhacayso in rugmanayna xabadna leeyahay caasimaayo waa halkan kale ragga filanimadooda marka gabadhay halkan deganaanaysa adigu halkaas ku qabaya guri qurux badan adeeg qurux badan buu u sameeyay gabadhii ninku waa businessman Boosaaso ayuu ka shaqeeyaa iyo Garowna bala business ku leeyahay marka waxay tii markuu xaggan Boosaaso ka yimaadana 3 casho nala sii jooga ama 2 casho markuu xagga Garowe tagay soo noqon halkan 2 casho nala sii jooga sidii gabadhii adigu waxay nolosha sidii u qurux badnaataba 3 carruur u dhashay kii u yaraa carruurta marka oo waxay tii yar oo aadu yaro aan wali sanadku buuxsamin ayaa ninkii Garowe qabtay Garowe hadduu qabtay ninkii shil buu galay kooma ayuu galay koomadii markuu galay waxay tii maalintii hore aan garaacay ee iga qaban waayay maalintii dambe aan telefonkiisa garaacay haddana wiil baa iga qabtay waxaan ku walaalo hebel ii dhiib wuxuu yiri hebel ma joogo xanuunsanayaa kooma ayuu ku jiraa maxaa helay gaarigii baa la gadoomay shil buu galay dadna kooma ku jiraa waxay tiri waxaan maqli jiray bay tiri haddii tala kugu cadaato cirkugu onkudo ilaa waxaad ciirsataa waa calooldeeg gabadhii waxay tiri waan fadhiistay waan taagnaa waan fadhiistay waxay tiri waan istaagay waan fadhiistay waxay tiri cidi ima taqaano cidi ima oga 3 carruur haystaa waxay tiri markaan naftayda u baqay ayaan waxay tiri masqusha galay 2 ragcadood baan walba weyso wasa qaatay 2 ragcadood baan tukaday marka xaasil baan noqday bay gabadhaas waan digay oo waxaan noqday calm down deedna waxaan ku ribay ilaahu sida khayr leh waxay tii shandadii baan xidhay gurigii dib u eegin carruurta yarna shandad baan xidhay anuguna shandad baan xoogaa ku qaatay dhar ah halkaasaan gaari ka raacay taxi ka qaatay waxay tii lacag waan haystaa waxba igama maqnaa waxay tii Garowe sii taagay magaalada la yiraahdo shandadahaygii waxay anigu sita ayaan dhakhtarkii la ii sheegay uu jiifay galay bay tii waxay tii reerkiisu waa reer ballaaran walaalihiis iyo hooyadiis iyo wixii way joogaan reerkiisu uu dul fadhiya ayaan u gala sidoo yahay baan ku yiri wax la yiri waa ninka koom ku jira waa kaas islaamta weyn waa wax la yaabo oo islaamu markii waa weyn yihiin way ka horeeyaan dadka oo dadka yaryar wax laga yaabaa fahmin gabadhan carruurta sidee meesha maraysa islaantii markii wax way dareentay islaantii markaa waxay tiri halkaan la fadhiistay 3 carruur la fadhiistay bay tiri waan eegay isagoo istul taagay marka gabadhii kale ma joogto waxay tiri inama fadhiya habla fadhiya midna ma garanayo waxay tii islaantii baa ka haysay gacanta ay qabatay bay tiri banaanka ila baxda waxay tii hooyo xagaad ka timi
waxaan ka imi bay tiri qardhoomiyada qardhaan ka imi xaggaad u socotaa waxay tiri ninkan maaragtay jiifahaa ayaa carruurtan dhalay oo qaba islaantii waxay tiri way sheegtay maysaa ku qaba haa adaa dhalay carruurta haa isug bay ku tiri islaantii way qalada oroday waxa u yeedhay laba inan ay walaal yihiin ninka waxay tiri dhegeysta gabadhan kaxeeya carruurtan hodheel geeya meel dejiya cunto u geeya markay degaan cunto iyo cunaana warka ay idiin sheegto kasoo qaada inamada wayna kaxeen gaadhay ugu qaadeen bay tiri hodheel bayna dejiyeen hodheelkan iyo carruurtaydii cuntay noo keeneen yacna waana baashireen inta qof bili aadan la baashiro waxay tiri markii dambe waxay weeyaan way sii warwareysteen xaggaad ka timi walaal aynkan halkaasan deganay saasaa dhacday waa ayaa tahay waxay tiri ninka qaba carruurtan isagaa dhalay okay carruurtana ma isagaa dhalay haa okay way yaabeen reerkii runtii way fajiceen gabadhii waxay tiri maalin subaxii dambe gabadhii baa timi adigu dee nuxnuxi ma qarsoomayse ninkii wuu soo miirsaday dabeedna waxaa lagu yidhi gabadh baa timi carruur waato saasa haa halkaasaan kaga imi maxay soo doontay buu yidhi halkeeda iska joogto ma joogin baa layidhi aday kuu timi eedo xagay u joogtaa okay buu yidhi gabadhana waan qabaa haddaan dhinto waxa xoolahayga barh bay leedahay carruurta saddex carruurta anaa dhalay buu anaa qabo gabadhaydii wey ninkii adigu iska joogay koomadi kuma noqon mar ilaahay ninku laakiin waxay tiri onof buu ahaa koomada mar waa gelayay mar waa kasoo baxayay mar cabaar buu ku maqnaanayay marba waa kasoo baxayay markii dambe waxay tiri gabadhii kalena way ogaatay bilaa dhacdo bilaal baadimay meeshii dhakhtarkii iyo adduunkii bay jijibisay meeshii reerkooda deganaa gabadhii markii meesha jijibisay wuxuu ku yidhi gabadhii waa fura gabadhii horta dalqadii bugu yeedhi tii dambe intay joogtay gabadhii markuu furay waa orodo reerkii intay soo dareerisay walaalaheed reerkii asaabkii wixii meesha deganaaba baa gabadhii hudheelkii loogu tago cad iyo fuudbayadii carruurtii baa laga dhiga qayladaa wiilatay reerkii baa loo yeedhay gabadhii baa lala cararay iyo carruurtii oo xanuunsanayo dee dhakhaatiir u baahan inamadii lacag bay siiyeen way direen gaari saareen special waxa la hargeysada iyo reerkiini qabo annaga kaa daba imanayna ninkan ama wuu ladnaan ama wuu dhiman laakiin carruurtaada soo adigu maad arag haa soo ninkii maad arag haa cafi iska tag haye waxay tiri waan soo baxay hargeysa la keena hargeysa reerkayga waan u imay tiri anoo werwersan oo aan seexan 2 casho 3 casho kadibna wax la weyn ninkii wuu xijaabtay wuuna geeriyooday okay ninkii markuu geeriyooday naag wala meesha iska fadhiisatay awalba nin baa la isku dilay maxaa wax la isku dilay ma jirin meesha ma jiraan dee waxaa la isku dilayaa gabadhi wax la soo noqo carruurta ka kaalay carruurtii bay ka timi reerkii u timi wixii ay dhaxal markaa isagu lahaa baa wiig 2 wiig kadib loo kala qaybiyay wixii way qaadatay hargeysa iska digtay hargeysa guriga ka reestay hargeysa ka digtay reerku reer iska ladan bay ahaayeen maasha Allah lacag leh oo iska ladan oo shaqaysta inaan guursano dayada isku age bay yihiin markaa meesha jooga ayaa inantii guursaday inantu markaa waxay tiinanta markaa dambe arkay waxay tiin nolosha adduunka ku jira alxamdulillah baanahay ninkayguna wuu shaqaystaa dawaaka halkaas xaaladeedu maraysaa marka gabadhaas markaa waxaan uga jeedaa hablaha ragga Soomaaliyeed gabdhaha markaa guursanaysaan qodba sirtan iyo qulunkan iyo waxana ku qarinaysaan waxana ku xiriirsan ka daayay gabadha u bareer gabadh baan guursanaya ama ha dhimaato wadno ha istaago ama caadi ha noqoto ama warqadeedii ha ka tahado haday ku warqada ku sii daadada ma laha carruurteedan haysato haday warqad ku dhigtona dee carruurteeda haysato carruurteedan ilaasho guriga iska dego halkay degantay iska degato biilka iska siiyo haddaad xitaa furto halkaa ku joogto marka dambe way iska soo noqonaysaa laakiin idinku filanimada aad hablaha kala qarinaysaan xitaa inan kala xasuusto corona kaga dhacay ninkeedii oo yiri ninka naay qari la dhantay degana corona ku dhacay dadna waxay awood ma leeyahay aan ku soo eego uma tagi karo hadduu maanta dhintona dib uma dhinta ka waran oo ilaahay dee waxa maray xasiino soo noolaaday ma garanayo intii baan weydiin mardameeyada oo inanta kale inan ka miday garanaysi marka dumarkow idinkuna waxa la idinku qarinayo iska daayay bal idin qarisa maxay isla qarinaysaa dhaw inta lag baan qaris oo qorayni maxay isla qarinaysaan noloshiina riski ha gelinina life kaagi dhammaan noloshaadii dhamad bad riski gelinaysaa oo aad leedahay wax ama lagu dafiri doonoba hadduu doono ku dafiri hadhow yaa ka mas-uula hadhow ku dafiro qaar baa lahaa nimankii tuug baa usoo doomartay inta meel ku qarsadeen oo jarjarayba markaasaa tuugta jarjarto naagtii reerkoodii halkan degan ahaan ogeyn oo mooday inay tuulo qabatay ayaa la ogaaday oo la jarjaray oo meydkeedii reerkeedii loo keenay riski badan bay dumarka qaataan qudbasirtu aan la qariyaa riski badan bay qaataan markaa iska daaya dumaro waxan ninku hadduu ku rabo ha ku bareero raganimo reerkiisana haysadna ku gursado laakiin hadda tay qari waa ku dulinimo waraad baan diin salaamaya dhamaantiin wada jecelahay
ويدكا